maamulka dhisan ee galmudug ka jira annaga u baahan hadaan nahay reer galmudug dhamaanteen oo wada baahana wasiir Caraale halkan wuxuu ka sheegay bilawgii iyo yabyabkii oo waday kiimiko iyo ilaa caawa inta ka dhaxaysa maamulkaas waa is soo kabayay waa is soo taray ha yaraado meel ha joogo laakiin magac waa siti kadib markii la isugu tagay la go'aansaday in caasimada maamulkaasina ay dhuusamareeb noqoto nidaam doorasho oo 4 sanaba mar dhacana la galo baarlamaan dhisan oo la qaybsaday awoodiisana la sameeyo wixii intaas ka dambeeyda waxay ahayd inaan de hor u socon waxa la filayo hadda ka hor marka bari xamar aad la isugu dagaalay waxa hadlay Raajis Biliga marka wuxuu yiri xabada la joojiyo walaalayaal xabada la joojiyo hadaan la joojinayn almiina la yareeyo hada galmudug waxay sugaysaa inay hormarto oo hor u dhaqaaqdo oo yaani nolosha muwaadinkeeda ay wax ka bedesho sida soo baxday shalay iyo daraad ku saabsan in galmudug dhul ka talinaysa laga qabsado waa gadaal u socod marka almiina horta hala yareeyo hala joojiyo waa in laga bilaabo balota dhig joojin waxbay ka bilowdaan dadka reer galmudug aniga waxaan isleeyahay tabasho mar walba iyo maamul walba ka jirtaan laakiin runtii sifada aan fiicnayn ee meeshaan galmudug ku soo badata waxay tahay qofkii xanaaqaba inuu doorka inta aad qora qaato ama meel qabsado ama bar control wax u dhibo ama nidaamka wax u dhibo ma ku soo kabsan karo aniga marka waxaan isleeyahay hadda doodu kama taagna sharciyad la isku ma haysto galmudug sharciyad dhamaystiran haysata maamul ay leedahay madaxweyne ay leedahay waqti oo haysta systemkii oo loo maray in loo bedelana hadda ma aha systemka hadda socda waa system agmarsan systemkaas agmarsan intana reer galmudug waxaana la ka rabaa aqligii looga bixi lahaa iyo jidkii looga bixi lahaa in la nimaado dabcan dadka qaar waxay yiraahdeen xildhibaanadu meesha aadaan senataradu meesha aadaan laakiin meeshan waa aadi jirnay waa soo marnay Sheekh Abdulqaadir bilaabay ragga iga dambeeyana kulay waa shoogi doonaan jidkan ruuxiisa shalay iyo daraad iyo maalintii koreeda la soo maray marka hadda meeshii shalay laga qaniinay oo daraad laga qaniinay oo maanta laga qaniinay xoogaa yar waxa ku jirta waxba khaldan aqoon mindhaateena ka badan u baahan tahay adinka ruuxiinu gabdhaha iyo wiilashiina ku soo wareejinin meesha iska kaashan aniga waxay ila tahay runtii maamulku dadaal waday waa dhaliil iyo maamul aan laga qabin ma jiro halkaan hadda mid aan la joognay oo 4 sano dhaliilayno la daba taagnay dhaliish waa wax furan oo mar walba furan laakiin de hadii hadda la yiraahdo Gurceel la qabsaday oo berina xaafad kale la qabsado oo saada mar mid kale la qabsado galmudug ma jirayso hadii galmudug jirna dadka ku dhib qaba waa anaga waxay ila tahay intaan salbugeed ku fariisano maamulka inaan taageersanahay oo ogolnahay maamulka galmudug loo goliya hadda la isku ma haystee sida aan mushkilada isaga xalin lahayn on problem kan oo san one is for all mar damba noogu soo laaban lahayn aan ka fakarno waxaan rabaa dadka reer galmudug gaar ahaan hadda nimankan odayaasha ah oo qabsaday magaalada Gurceel waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu dadka badan leh deegaanada galmudug runtii inuu dib ka dhaco oo hadda jimcihii dibka ogeedeen oo ka dhaco ama haddaba wadnaha farta looga hayana waxay ceeb ku tahay ama kuwa culmada sheeganaya ama annaga ruuxeeno dhinaceena kale ay ceeb ku tahay inay hooyo qaxdo inay walaasha qaxdo inay adeerta qaxdo inay gabdho umulaya ku umulaan qurac hoosteeda waxay ku tahay aqliga yaani sanadka 2021 aan joogno ay ceeb nagu tahay because of kursiyan raba darteed ama awoodaan raba hadda on inta aniga ii muuqata waa saasay dhamaanteen ceebay nagu tahay waxa loo baahan yahay si aan ahayn xoog si aan ahayn magaalo in la qabsado in la keeno laakiin 2021 magaalan qabsana waa ku gorgorto siyaasadeed saan ugu galo xogaa runtii aniga waana leegala fiican yahay waana ila khalday raayigay siyaasadaan ku jirnaa dana siyaasadeed aan leenahay maalin aan nala ka adkaada maalin aan fursad helnaa laakiin hadda siyaasaddu waa sugasho waa inaad sugato laakiin haddii markii laga adkaado aad tira wallahi laga ma adkaanin rules of the game shuruuc ay leedahay siyaasaddu shuruucdeedana waxa kamid ah inaad markii laga adkaado aad sugato
oo bankiinada intaa fadhiso wixii kale oo qaban karto aad qabato wax badan oo kale oo la qaban karana aana jirta oo hadda 4 sano la soo dhaafay amba example u ah oo ma aanan shibna ma aanan ahayn waxna naga mahlaabin aniga marka waxaan qabaa nimankaas walaalahay inaan fariin u diraya ahlu wal jamaa la yiraahdo 10 sano la soo dhaafan jidkan ruuxiisa hayn jidkan jidaan ahayn inay la yimaadaan laga rabo haday tabasho qabaan waa la qaadaynaa waa la geeninaa maamulka la geeninaa dadka u la geeninaa laakiin magaalan qabsanay magaalo kale aan ku soconaa xogaa aniga war la yeeli karo oo hadda galmudug ka gadmaama mid soo hartay oo ah reer galmudug oo dhan u taalo waxay tahay de meeshii aan filaynay iyo meesha hadda nolol ka giibid isma bale dadku waa kala masayraan waa dhaweed Somaliland doorasho ka dhacday aad iyo aad u sareysa isisaareed xildhibaano oo deegaan iyo xildhibaano baarlamaanka dhexe ah waa ku soo guuleysteen meel ay ku soo gaareen hadda waxaan ka warhaynaa campaign adaga wuxuu ka socdaa Puntland qardho iyo Eyl iyo magaalooyin la mid ah maanta masawirada ina arkayseen waa maleynaynaa Eyl oo presentation dadka loogu sameeynayo sida ay doorashada u qayb gali lahaayeen iyo Gurceel oo daba jaxyo niman dhaxda ugu xiran tahay ay joogaan aniga waxaan rabaa weligay waa la hadlaa dadka reer galmudug ilaa waa dadkaygi moogta meeshaan naala anaga isdignay saan isaga qaadi lahayn inaan ka tashanaa la karabo meel qurxoon ma ama Sheekh Shaakir dhe ama maamulka ka dhe ama hebel dhe qofay farxad gelinayso wax hadda meeshaas ka jira ma jiraan sida aan uga bixi lahayn talay tusaale naga rabtaa laakiin aniga hal jid bisan aan ka arkaa waa jidka maamulka galmudug oo aan dhisanay oo aan qabaa'il kala duwan isugu nimid oo sheerkaygi oo nin ku fadhiya hadda meesha inaan ka sugto xalan hayno si furay marka ninkii kale oo adeerkiis loogu fadhiyo oo in adeerkiis meesha joogo asna inuu sugtaa laga rabo wax kale oo ka furan aniga inay jirto uma haysto arinta ku saabsan colaad waa laga hadlay Soomaalidu mar walbana waa hadashaa laakiin tadbiiqan ugu adag wax wiil kuma dhashay wiil baa ku dhintay wiil kaliya kuma dhintay gabarona waa ku dhimataa hooyooyina ku dhintay caruura ku dhimata waayeela ku dhintay qof walba ku dhintay colaada galmudug ka soo cusboonaatay waana dhibaysaa in si degdeg loo joojiyo ciidanka meeli laga keenay lagu celiyo galmudug maamulkeeda faraha loogu celiyo wixii laga tirsanaana markaas la doono odayaal laga odayeeyo